بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد طهارة وحنو فهمي قبيسك لغا قبيسانيو أما الجنابو أما لغا قبيسانيو عادة إيو ديك عادة لغا قبيسانيو siyaabaha loo qabaysto saddex nooc ama saddex qaab waa sax hal qaabna waa khalad qaabka koobaad waxa weeye ruuxu markuu qabayska isu diyaariyo inuu xubinka taranka dhaqo ama istijaysto kadib ويسيسنيا ويسر dhamaystiran oo ilaa lugaha uu dhaqayo markuu weysaysto kadib uu biyaha isku shubaya madaxa ka soo bilaabaya sidaas uu ku qabaysanaya qabayskiisa markuu dhamaysto qaabka uu qabaysto uu weysa qaba waana qabaystay weysa dambaynu weysa dambe inuu la yimaado ma baahan qaabka labaad waxa weeye markaad istijootood xubinka taranka dhaqo ayaad weysaysanaysaa sidoo kale weysadii waxaad reebaysaa labada lugood dhiqitaankooda xubnaha kale oo dhan baad soo dhaqaysaa wajigii gacmihii masixii madaxa markaad lugaha joogto lugaha intaadan dhaqin baad marka biyaha isku shubaysaa waad qabaysanaysaa qabayska markaad dhamaysato ayaad lugaha dhaqaysaa sidaa waad weyse qabtaa waadna qabaysatay uma baahnid inaad dib ka weysaysato qaabka saddexaad waxa weeye markaad isjootood xubinka taranka dhaqdo kadib adoo weysaysaninba inaad biyaha isku shubto isla niyooto weysadii iyo qabayskiiba intaad qalbiga wada gelisood niyooto inaad biyaha isku furto sida aad ku qabaysato qabayska markaad dhamaysato weysana waad qabtaa waadna qabaysatay uma baahnid inaad weyse ka dambaysiiso saddexdaas qaab waa sax حديث النبي يكون يمادين صلى الله عليه وسلم قابك أفريا وحويان وإناد قبيسته مركز قبيس كبميسته كدبنا آد ويسده كدم بيسيس تاسي وخلط وانا ميدا عنوما لإنادو بدنتهين oo dadka badankooda isticmaalaan qabays horeeya iyo weyse ka dambaysa xadiidka Aisha fi sunan waxa ku sugan inay tiri nabigu sallallahu alayhi wasallam qabayska kadib ma weysaysan jirin wa xadiidku Aisha ama inuu qabayski iyo weysadii isla niyoodo ama inuu weysadu horeyso qabaysku ka dambeeyo sidaas uu sameyn jiray laakiin qabays horeeya iyo weyse ka dambaysaay ما أهين بقى كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم